السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي وعن ونكسن أخياري ميل والبو أجوبتان waxaan taaganahay oo noo soo gabagaboway bisha Ramadaan ee barakeysaned waxaan taaganahay maalin ciideed Allah naga aqbala acmaasheena taqabbal Allahu minna wa minkum salihal a'mal waxaan rabnaa mikrofoonka inaan la dulmarno oo aan hor istaagno qof walba halkan yimaado si uu farxadiisa maxalli raada iyo Ramadaanka qaabku u soo noolaa ama barwaaqada uu soo maray ama inuu ka faa'iideysteen kala aan wada wareysano la socod wanaagsan fadlan hadaa ku cusub tahay channelkan subscribe noo بسم الله الرحمن الرحيم أنا مقعيقة وشيخ جعفر حاج علي آدم ميشا هدا أن جوغنا ومينا ونجيجي اسكول كدوكسي سارة قبلها ما أنت وحان كو أغني إيد أيان كو أغني مركا مقعيقة سدحان واكا وإمامك خطيبك إيد أيان ميشان أيان كو ماموليني إلى وقتي لغسوا بالله والله بكون إن صدح يتوانك إلا هدا أيان ودنا مركا جزاكم الله خيرا ميشاس أيان جوغنا سؤاشا كلا وحواي ميشاني رمضانكي هاد نوصل لماذا رمضانك فروحو كجا بدلية وهي أوفر بدن وكجا بدلية هاي دتكي أو مر والبابا مركي قدم أي آد وصوب بدن عيان أو ماشي إيدو كدو كان عيان أي بدن تهاي إنكستو أو رمضان كان جرامدي كلا لوجدو كان أي أو راب بيه جلين لكن كان إلهي مهديس إلهي ونبض بادي جران كان وين ونجيجي صون كان وحنوجا بدلية هاي وجرانك كلية لغو دكاناي أو إسلي كيالو فور ستريت أيو كيالا ماشي حرادة ميلتري أيو دبر كوهايا فور ستريت مركي لغا صوبها ماشي أيام كو إيدني إيدان وإيد آد وفرح بدنا ويقرونك آد أيو أصوب بوحدافيي دور جار أيام دجني جماعة كوات جماعة لبات لبا جماعة كلنا قداشي أيام لدكودي صد أفر جماعة أيام لغو أوغي دادك تردو دا سي وبدنتها أياد كقرانيسا marka sidaas darteedaba dadka muslimiinta waxyaabaha ay aad ugu faraxsan yihiin waxa kamida iida maadaama ay laba iidood ay dadka muslimiinta ay leeyihiin iid kastaba waxay gadaasheeda dhacdaa rukni ama tiirarka islaamka oo la gutay ayaa loo dabaaldegaa kan waxaan u dabaaldegaynaa ramadaankii oo aan soo soonnay oo aan soo dhamaysanay ayaan maanta u dabaaldegaynay iidul fidriga kan kalena iida weyna waxaa loo dabaaldegi doonaa haddii ilaahayna gaarsiiyo mar walbana loo dabaaldegaa markuu rugnigii oo xajka markuu dhammaado dadka muslimiinta ay soo dhammaystaan marka waxay ku tusaysaa muslimiinta diinta islaamka sida ilaahay ugu talagalay inay dad midaysan ay yihiin oo rugnigii ramadaanka ay soo wada guteen faraxna way wada muujinayaan meel kastoo ay joogaan kan labaadna xajka ayay soo wada gudanayeen dadkii gutay iyo dadkii kaleba quluubtooda ayaa isku xiran ayagana faraxi ayaa la wada muujinaya kii xaramka joogay oo xajka gudanay iyo kii kala banaanka joogayba kulligooda maanta farax ay isla wada muujinaya maalintaas carafo marka labadaas iidood ayaa dadka muslimiinta ay leeyihiin oo aadkana qiimo u leh dadkana quluubtooda isku dhaweynayso khudbada maanta aan soo qaadanay waxyaabaha ugu muhiimsanaa waxaa ka mid ahaa oo dadka inay shaqadan ay maanta ugu horeyso ay qabanayaan faraxa kadib inay dadka oo aan isku fiicnayn oo khilaaf ka dhex taagan yahay inay heshiiyaan oo maanta baal cusub inay bilaabaan oo ay dadka nabigeena rasuulkeena salawaatu rabbi wasalaam xadiiskiis inay xasuusnaadaan oo rasuulkeena uu yiri ma idin sheegaa wax ka fiican oo ka ajar badan soon la soomo sadaqa la bixiyo wax kastaba wanaag fara badan buu rasuulka tiriyay waxa waaye islaaxu daatil bayn dadka dhexdooda in la heshiisiyo dadka oo cuqdada iyo xumaanta ka dhaxaysa in la heshiisiyo midda labaad oo khudbada ugu muhiimsaneed oo aan ka hadalnay waxay ahayd gabdhaha mu'minaadka ah inay ku dayadaan haweenkii nabiga sallallahu alayhi wasallam iyo gabdhihii nabiga sallallahu alayhi wasallam inay ku dayadaan inay iska ilaaliyaan maxaa la dhahayay dadka oo munxarifiinta oo diinta ilaahay ka leexday in ay diintooda ka leexiyaan inay iska ilaaliyaan xijaabkooda iyo xishmadooda ay ilaaliyaan maxaa yeelay gabdhaha muslimaadka ah marna waa hooyo waaye gurigeeday qiimo ku leedahay ilmaheeda ayaa madaxa saaranaya mar waa zawjo oo la qabo waaye ninkeeda ayaa karaameynaya madaxa saaranaya mar waa gabar walaal ah walaalaheedii wiilashii walaalihii gabdhihii ayaa kor u qaadaya mar waxa waaye marba waxay ay tahay marna waa walaal mar waa gabar mar waa hooyo
intaas oo dhan ilaahay muxuu u karaameeyey haweenka wuxuu u karaameeyey maxaa yeelay waxay soo saarayaan dad wanaagsan oo jiil cusub oo wanaagsan oo ahlullah ay soo saarayaan marka inay gabdhaheena ay wanaagsanaadaan waxay ka turjumaysaa bulshadeena inay wanaagsanaato marka qiimahaas weyn ayuu gabdhahana ay u leeyihiin weliba gaar ahaan waxyaabaha aan aad iyo aadka aan ugu dadaalnay waxaa ka mid ah dadka muslimiinta inay isku soo duceeyaan meel kastoo ay joogaan weliba gaar ahaan walaaladeenna muslimiinta ah oo Falastiin lagu gumaadayo gaar ahaan Gaza dhibaatada ummadda lagu haayo in loo duceeyo in la garab istaago hiil iyo hooba in la garab istaago marka waxa waaye anaga waan garab istaagnay wixii tabarteena ah hiil iyo hoob waan garab istaagnay waana u duceynay dadka muslimiinta meel kasta ay joogaan walaaladeena muslimiinta meesha ku dhibaataysan maadaama aan waxba la gacanteena aan gaari karin inay gaarto ducadeen inay gaarto oo inuu ilaahay uga hiiliyo cadowgaasi u soo tashaday cadow caalami ayaa u soo tashaday marka cadowgaasina marka waxaan rabnaa in ilaahay ka dulqaado inaan ilaahay ugu barino dhammaanteenaba muslimiinta inta ay maqlaysa iyo inta ay maqli doontaba waxaan leeyahay kullu caamin wa antum khayr in la iscafiyo diinta ilaahay aan qabsano aan ku dhaqanno qofka markuu wanaagsanaado ayuu wax wanaagsan soo saaraya ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu sanadkiisa kale inuu ilaahay barwaaqo nagu gaarsiiyo iyo amni ammaan waddankeenan allaha noo hagaajiyo ummadda Soomaaliyeed allaha mideeyo meel kasto ay joogaan dad walaalo ah isgacan qabta iskaalmaysta inuu ilaahay ka dhiga ayaan ilaahay uga baryaynaa maadaama maanta maalin farax ay tahay ducada la aqbalayo ducada in aad iyo aad loo badiyo walaaladeena meel kasto ay ku dhibaataysan yihiin in ilaahay loo baryo dadka meelaha ay oomanaha iyo roob la'aanta ka jirto in ilaahay loo baryo dadka colaadaha iyo dagaalaha sokeeya oo lagu dhibay oo waxa isku diraa inuu ilaahay ka qabto in loo duceeyo dadka oo dhan ducadaas ayaa wax weyn noo taraysa annagana way noo fiican tahay ayagana way u fiican tahay waxaan idin leeyahay mar kale iyo mar saddexaadba kullu caamin wa antum bikhayr wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh السلام عليكم ورحمة الله وبركاته واسي ورن رمضان هو محوك يدوي هي أذو مقعد كبلا بسم الله الرحمن الرحيم هذا محمد عبدي الحمد لله ما شاء الله واي رمضان كان رمضان بركة عنو بركة سنة خير بدن واي مركا إن شاء الله عبادي عافمات إلهي ونوسي ما أنتنا ومالين عيد وين عليها هاي ومضاها مسلمين تسوى ماليات جارهان وهم بليننا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم مقعي وعبد الله معلم عبدي رمضان كان وحو يقود وين رمضان نذي صوت دافي الحمد لله رمضان آدي مارتي أبر واقع أيوها وأن مارتي وعبادة بدن أيوها محمد كل هداي ومد الإسلام كمارتي وعي هذه يو مارتي مارتي يو حق الدين يعني الدين تحق هذه مارتي ugu ahmiyad weyn ay u saareen hadii aad fiiriso masaajidada iyo meelaha goobaha lagu cibaadeysto aad iyo aad ay maartay u camirnaayeen ma sha Allah taala marka waxaan u rajaynayaa dhammaan ummadda muslimiinta oo dhan waxaan u rajaynayaa guul ayaan u rajaynayaa insha Allah ciid xigta waxaan rajaynayaa insha Allah muslimiinta oo guuleystay oo maartay maxaan ku yiraahdaa dhamaantood yaani cizi iyo sharaf ku wada nool oo aan cid la gumeystay oo muslimiinta kamid ah aysan jirin maartay nabad iyo barwaaqo wada ciida hadii ilaahay raali ka noqdo saas ayaan u rajaynayaa khaas ahaan ahlu Gaza waxaan u rajaynayaa nabad waarta oo barwaaqo ah inuu ilaahay siiyo ilaahayna uu ka dulqaado gumeystaha maartay duldagay boqolka sano ku dhawaadka duldagay inuu ilaahay ka qaado ayaan maartay ilaahay ugu baryayaa maalin ciida waay inuu ilaahay naga aqbalo bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din wa salatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da maanta waa maalin farxad leh soonkii aad buu si fiican u nagu dhamaaday cibaado fiican dadka aad bay u diyaar garoobeen howlo badan baan qabanay marka alxamdulillaah soonkan ka horaba waxaan ku bilaabay istiicdaad fara badan si fiican insha Allah waxaan aaminsanaa uga faa'iideysanay maantana shalay buu noo dhamaaday xalay marka ciidi iyo isku diyaarinay haddana maanta ciidi baan joognaa عالم الإسلامي محل دنبال أو دير لهاد وكي إسلامك عالم الإسلامي محل إن شاء الله أندر دنبالك أول ما أنت أندر وحاول فرحة أن هاي سنة يلا هلمان من أهل غزة دب كجيران فرحة ما أنت أنجواسي أيوة ما هاي سالان مركا أن أدعينا الدعاء أن كوكبنا وحي تبرعات أن كديغ كرنا أن كديغنا جزاك الله